kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada kulankan oo ah dood kooban oo qaybo kamid ah ardayda kuliyadda sharciga iyo qaanuunka ee jaamacadda Hargeysa ay ku lafaguri doonaan kuna falanqeyn doonaan xeerka jinsiyadda Somaliland ee afka qalaad loo yaqaano citizenship. doodan ayaa waxa kalifay inay soo abaabulaan ardaydu kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyay uu muran dhex yaalay bulshada ku saabsan xeerkan. doodan oo muuqaalkeeda aad ka daawad doontaan lifaaqa aan idinku reebi doono hordhaca doodan ayaa waxa fooda isku dari doona arday qaarkood taabacsan yihiin in xeerku uu sidaasi ku sii shaqeeyo halka kuwa kale ay qabaan in xeerka wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo. xeerkan oo ah mid hadda ka shaqeeya Somaliland isla markaasna ay baaskareeyeen ama ay ansixiyeen baarlamaanka Somaliland. ugu horeyn ardayda labada group ee midkood taabacsan yahay midkoodna uu ka soo horjeedo xeerku inuu sidan ku sii shaqeeyo ayaan midigta ka bilaabi doonaa isbarashadooda. Cabdicasiis Maxamed Muuse oo midigtayda fadhiya Cabdicasiis Caddo waxa isaguna ku xiga Cabdilaahi Maxamed Warsame Cabdilaahi Xuquuq waxa isaguna bidixda iga fadhiya Cabdixakiin Aadan Cabdi Ciile Cabdixakiin Xagla Toosiye waxa isaguna dhanka kale iga fadhiya Sakariye Dayib Muuse Sakariye Qodax. anigoo dooda mediator ama xiriiriye ka ahina waxaan ahay Axmed Nuur Ciise. waxaan dooda hadalka ugu horeeya siin doonaa Cabdicasiis Caddo. Cabdicasiis bal waxaad ugu horeyntii aad sharaxdaa ereyga jinsiyad iyo saddexda erey ee ugu horeeya xeerka. saddexda erey oo kala ah muwaadinimo, ajaanib iyo laaji. saddexdaana iyaga waxay ku kala duwan yihiin balsheeg. jinsiyad marka hore jinsiyad horta waa Carabi kelmadani oo Soomaali markaan inta badan Soomaali loo yaqaan ereygan jinsiyad oo Carabidaas bay sharcigan ugu qoran tahay xeerka jinsiyadda xeer number 22/2002 ugu qoran tahay. marka ereyga jinsiyad wuxuu noqonayaa haddii aan Soomaali ahaan sida ugu dhow aan ku sheego ahaanshiyo aw ahaanayo qof dalka soo jeeda. inta badan dadku waxay ku qaldaan isirka jinsiyaddu isku mid maaha. isirku waa halka ka soo farcamtay kushitig to Soomaali to Somaliland. ka jinsiyaddu waa dalkaaga Somaliland oo sita dhalashadiisii lagana garanayo inaad Somaliland ka soo jeedo. haddii aan isku dayo ereyga muwaadin haddaan ka jawaabo ereyga muwaadin iyo laaji iyo ajaanib. muwaadin waxa weeye qof kasta oo ka isran dadkii deganaa 26 Juun 1960 iyo ka hor suu sheegayo dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland qodobkiisa 4. ereyga laaji waxaa loo jeedaa qof kasta oo loo aqoonsanaado qaxoontinimo kuna sugan dal oo marti ku yahay. ereyga saddexaad oo ahaa ajaanib waxaa loo jeedaa qof kasta oo aan ahayn muwaadin reer Somaliland ah. waa tahay dhankiisa Cabdilaahina aan ku wareejiyo bal sidoo u sharaxo ama uu u qeexo ereyga jinsiyad waxa uu yahay iyo saddexda qodob ee ugu horeeya xeerkaasi sidoo u sheego bal waxa ay ku kala duwan yihiin saddexda erey oo kala ah muwaadin, ajnabi iyo laaji. haddii aan si toos u sharaxno ereyga loo yaqaan jinsiyad macnaheedu waxa weeyaan dhalashada qofku uu haysto oo ah jinsiyadda wadanka uu haysto ayaa ah jinsiyadda. waxa isku had iyo jeer laba isku qaldan laba erey oo kala duwan oo ah waxa loo yaqaano isirka ama qofku meesha uu ka soo farcamay farca oo ah qofku meesha uu ka yimid oo ay dadku badankooda isku qaldaan. laakiin jinsiyad haddii si toos u sharaxno jinsiyad waxa weeyaan waa dhalashada qofka dalka uu haysto ayuu yahay jinsiyadiisa uu haysto yahay muwaadin dalkaasa. saas ereyga jinsiyad haddii aan ku soo dhaadhaco ereyga muwaadin waxaa loola jeedaa qof kasta oo ka isran dadkii deganaa Somaliland 26 Juun 1960 iyo ka hor iyo qof kasta oo sifo sharci lagu siiyay dhalashada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa wuxuu yahay muwaadin. haddii aan isdul taago ereyga laaji waxaa loola jeedaa qof kasta oo loo aqoonsaday qaxoontinimo oo ku sugan dal uu marti ku yahay ayaa loo yaqaanaa laaji. haddii aan isdul taago ereyga loo yaqaano ajnabi waxaa loola jeedaa qof kasta oo aan ahayn Somaliland qof kasta oo aan ahayn muwaadin Somaliland ayaa waxa loo yaqaanaa ajnabi. Sakariye Dayib Qodax oo kamid ah ardayda taabacsan xeerkan isla markaasna ogol in xeerkan sidaasi uu ku sii shaqeeyo. bal ugu horeyn adigu waxaad dhankayna aad sharaxdaan ereyga jinsiyad dadka u yar sharax.
xeerkan jinsiyaddu waa xeer aad u ballaaran kaasoo taabanaya bulsho weynta jamhuuriyadda Somaliland dhinacyo walba ka taabanaya gaar ahaan aad u sii taabanaya bulshada rayidka hadday noqoto iyo bulshada guud ahaan jamhuuriyadda Somaliland xeerkan xeer 2002 waa xeer ka soo isirmay 2002 kaasoo la ansixiyay golaha wakiilada ay u ansixiyeen shacbiyada jamhuuriyadda Somaliland xeerkan haddaan ku daadego wuxuu ka hadlayaa jinsiyadda amba waxaan loo aqaano jinsiyadda oo ah nationality amba xaqeen ka soo jeedno shacabka amba dadweynaha jamhuuriyadda Somaliland haddaba sidoo xeerku qeexayo qodobka afraad dastuurka jamhuuriyadda Somaliland kaasoo in la akhrino qodob koowaad ee xeerka jinsiyadda Somaliland kaasoo sheegaya waa kuma muwaadinka reer Somaliland xeerku haddaba wuxuu leeyahay muwaadinka reer Somaliland waa qofkii ehelkiisa amba qaraabadiisa amba labadiisa waalid ee ka soo jeeday uu deganaan jamhuuriyadda Somaliland 1960 kaasi oo si sharcigu taageersan yahay ku helay aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland kaasa la oran karaa waa jinsiyad baa calaashan la oran karaa waana qofka la oran karo qofkaas jinsiyad ahaan jamhuuriyadda Somaliland ayuu ka soo jeedaa marka bal wax siira barbardhigta adigu idinku dhankiina saddexda eray ugu horeeya ee ah muwaadinimada laajiga iyo ajnabiga sidoo sheegayo xeerka xeer 2002 muwaadin wuxuu ku qeexaya waa qof kastoo ka isran dadweynihii amba shacbi weynihii deganaa jamhuuriyadda Somaliland 1960 ka hor kaasoo xeerku dhigayo inuu yahay muwaadinka Somaliland han soo daadego laaji waa qof kasta oo dalka jamhuuriyadda Somaliland ku jooga magangeliyo amba qaxoontinimo ku jooga kaasoo sharcigu u baneeyay kaasoo ku sugan dal marti u yahay kaasoo la oranayaa laaji soo dhigayo xeerkan 2002 xeerka jinsiyadda Somaliland ajnabi waxa loo jeedaa waa qof kasta oo aan ahayn muwaadin Somaliland ka ajnabi tusaalahaan ajnabi wuxuu soo qaadanayaa qof dalka ku jooga hawlo ganacsi oo ajnabi kaasoo haysta kaarkii dalkiisa ka soo jeeday laakiin Somaliland u jooga hab ajnabi ahaan ayuu xeerku dhigayo Cabdi Xakiin adigu dhankaaga waxa taabacsan tahay inuu xeerku saasi ku sii shaqeeyo waxaad hortay dadka u yarbayaa misa ereyga jinsiyad iyo saddexda qodob ee muwaadinimo laaji iyo ajnabi bal saddexdaas iyagana qayaxitaan ku sameey iyo waxaad xeerka aad ku waafaqsan tahay ku taabacsan tahay أولاً waxaan mahadnaqayaa wariye Axmed Nuur Samraawi hadaan soo daadego su'aashay weydiiyay oo ah waa maxay jinsiyad iyo waxa dadku isku qaldaan isir haday labadaas midun jir lahayd ee tolo isma qaldeen marka jinsiyad waxa la yiraahdaa ahaanshaha uu qof ahaanayo dal gaar ayaa la yiraahdaa jinsi tusaale iminka Mareykanka iyo Ingiriiska waa isku dad haddana waxa kala duway midna waa Mareykan cadaan Mareykan ah midna waa cadaan Ingiriis ah deeto jinsiyadooda kala duwan isir ahaan wax laga yaabaa inay isku mid noqdaan marka isirku waa dad meel ka wada isiran sida Soomaali oo dhan marka Soomaali oo dhan lagu leeyahay waa isir marka hadaba Soomaali oo dhan lagu leeyahay waa isir haddaba Soomaali Djiboutian Soomaali Somalilander Soomaaliya Soomaali Ethiopia iyo Soomaali Kenya maxay kala duwan yihiin mid kastaaba wuxuu ku abtirsadaa dal gaar ah sidaa darteed jinsiyad macnaheedu waxa weeye ahaanshaha uu qof ahaanayo dal gaar ah sida Somaliland oo kale haddaan soo daadego su'aasha kale raacsanayd ee kala saaritaanka saddexda weed ama saddexda erey ee ku jira xeerka jinsiyadda Somaliland ee qeexitaanka ah saddexdaas waxay kala yihiin waa maxay muwaadin waa maxay laaji iyo waa maxay ajnabi muwaadinku waxa weeye waa ahaanshaha uu qof ahaanayo hal dal gaar ah aan lahayn ayaa muwaadinku noqonaya oo ah qof kasta oo ka isiran dadkii deganaa Somaliland 1960 June amba ka hor qofkii ka isiran ayaa la yiraahdaa muwaadin taa waan isla garanay haye waxa soo haray laba aad isku dhow waa maxay ajnabi iyo maxay laaji ajnabi iyo laaji caadi ahaan dush iskaga mid weeyii laakiin wax gaar ah ku kala duwan yihiin laajigu ajnabi uu noqon karaa laakiin ajnabigu laaji ma noqon karo laajigu waxa weeyii waa qof loo aqoonsaday
inuu yahay qaxooti oo degan wadan gaara sida refugee oo kale imka Soomaalida dibadaha joogta mararka qaar waa qaxooti inta ay dhalashada qaadan deeto qaxootiga ay yihiin waa laaji wali may qaadan dhalasho deeto waa laaji marka waxa weeyii wadanka marka ay joogan wuxuu aqoonsan yahay refugee qofkaas waa laaji ta dambe waxa timid ajnabiga isaga looma aqoonsan inuu yahay refugee ama qaxooti looma aqoonsan sabab loogu aqoonsan waxaan loogu aqoonsan isagoo wadan kale nationality-giisa ay wadanka sifo sharciye ku soo galay deeto muwaadin noqon maayo laajina noqon maayo refugee maaha wuxuu noqonayaa ajnabi marka ajnabigu waa muwaadin nationality gaar sita wadan nationality gaarana imiday sifo nationality gaarana ku soo galay laajibna waa qof refugee ah muwaadinkuna waa qof u dhashay wadanka su'aasheena labaad ayaan u gudbinayaa Sakariya Qodax Sakariya bal adigu waxaad doodaada ka dhiibataa saxnaanshaha xeerka ee aad waafaqsan tahay leedahay xeerku inuu saa ku shaqeeyo maadaama tahay ardayda ku doodaya bal adigu inta sharax xeerkan xeer 2002 xeer 22 shakhsi ahaan aad baan horta maxaa ugu bogaadinaya ciidii sameysay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland xeerkan sida lifaaq leh u soo sameysay amba ay u soo ayday amba ay u soo tabantaabisay jiritaankiisa xeerkan waxaan ku taageersanahay ra'yi ahaan koow waa xeer ka duulaya jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qarannimadeeda lamar laba waa xeer ayidsan amba taageersan isir ahaan markaan ku leeyahay xagaan ku dul istaago isir waa isagoo ilaalinay koow waa afkii amba luqadii iyo dhaqankii diintii dadyoga Jamhuuriyadda Soomaaliland degan muxuu hadaba ku ilaalinayaa waa xagaas is weydiin mudan koow wuxuu ku ilaalinayaa tusaale ahaan maanta hadii in yar Ethiopiana aynu siino inan ka isran Jamhuuriyadda Soomaaliland hadda toolay waxa dhag waa gabadh waana warshada wax soo saarka haday noqoto waa warshada wax soo saarka bulshada waa hooyo way noqonaa hooyo kaalintii bulshada kaga jirto waa warshada wax soo saarka bulshada biri ka maalin dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku dhalan doonta in ay dalkooda ama dalkii iyagu xaq u lahaayeen ee abiyaashood ay ku isirnaayeen ay ka soo jeedeen in ay hadda toole muran la geliyo cida u leh dhaxalka amba u leh hidaha iyo dhaqanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland labada qodob ee aan ugu waaweyn ee aan ku taageersanahay waa ka iyo qodobka saddexaad oo ah qodobkaas oo ka tafatirmo qodobka shanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah diinta maanta hadii nin ajnabi ah oo dadka Soomaaliyeed 100% waa dal islaam ah qodobka shanaad wuxuu akhriyaa in diin aan ahayn diinta muslimka aan lagu dhex faafin karin Jamhuuriyadda Soomaaliland naga qodobka ka duulayna waxa dhici karta dad aan dhaqankeena iyo diinteena aan haysan inay dalkeena ku tafirmaan taasoo caqabad ku noqonaysa jiritaanka diinteena islaamka amba waxyeelo gelinaysa qadiyada amba diinteena islaamka gelin karta hadhow qalqal taasoo ku keeni karta muran iyo isqabsi bulshadeena Cabdicasiis Cadow adu maxaad ku diidan tahay baladgu xeerkan jinsiyadda Soomaaliland oo muhiimadeeduna tahay inuu in qofka muwaadinka uu khilaafayo isla xeerkan is khilaafayaan qodobka 9aad isla xeerkanna is khilaafayaan muhiimaduna ay tahay marka wixii dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hor imanayana ay iswaafajinayaan marka xeerkan waa xeer aad moodo iska hor waa xeer aad moodo xeer inuu iska hor imanayo khilaafayana dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah mastarka koobaad ee la noqonayo hadii halkan dhaqanka dul istaago dhaqanka Soomaalida hore waxa marka xeerka imka la dejiyay dhaqan baa lagu dejiyay iyo diinta islaamka iyo shariicada islaamka diinta islaamka iyo dhaqanka iyo cirfiga dawliga hadii aan dhaqanka dul istaago dhaqankii hore ee Soomaalidu ama dhaqankii imka ay lahayd Soomaalidu waqtiyadii hore waxa jirtay hadii laba beelood islaayaan oo kala xaddiga inta la isku yimaado ayaa la bixin jiray godob reeb waxa dhacdo godob reeb dhaqan bay ahayd godob reebtu waa inanta oo guur baa iswadaarsan jiray si inanta loogu dhayo waqti labada reerood ay iska dileen oo la siinayo reerka inanka laga dilay inan la siinayo geel magna la siinayo Soomaalidu waxa ku maamulaa marka
xinjir halkay taalo xabbaa lagu qubaa nimadeeduna ay tahay in curfiga uu ka hor imanayo iyo dhaqankii oo inantiiba maanta haddii lagu leeyahay ajaanib ayaa nin ajaanib aad u gurisa gabadha way luminaysaa muwaadinimadeedii ajaanibka cid kale maaha wax noqon karaa Puntland Soomaaliya ku dhaqan baa noqon karta jigjiga Soomaaliya joogtaa noqon karta Djibouti baa noqon karta ajaanib ma ajaanib cadaan iyo gaal ajaanib qof kasto islaam noqon karta islaamkuna isku qorshay diin islaamku in qof islaam ay la siiyo isagana dhankiisa Cabdilaahi aan ku wareejiyo oo qaba in xeerka wax ka bedel lagu sameeyo bal Cabdilaahi adigu maxaad ku diidantahay xeerkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim haddaan si faahfaahsan uga hadlo in xeerkan xeer lambar 22 ee saxiixa baarlamaanka Soomaaliland si toos uga hadlay xeerka jinsiyadda Soomaaliland xeerkan wuxuu ka farcamay qodobka afraad dastuurka Soomaaliland ee ka hadlay xeerka jinsiyaddaas uu qofka uu Soomaaliland ku noqonayo tahay qofkii 26 Juun deganaa ama wixii ka horreeyay inuu yahay Soomaaliland muwaadin Soomaaliland haddaba qodobkan xeerkan ka isirmay ama ka soo baxay qodobka afraad Jamhuuriyadda Soomaaliland laga sameeyay haddii aan isdul taago 14 article uu ka kooban yahay xeerka marka si toos ah isu dul taagto aad naaqashaad fara badan ku samayso waxaad arkaysaa meelo fara badan oo ku kala duwan yahay oo ka khilaafay dastuurka qodobka 8aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka hadlayaa in muwaadiniinta Soomaaliland lagu kala saari karin hayb iyo isri iyo qabiil iyo gender luqadda iyo kalarka iyo haybta iyo kala sarreynta mid toona in lagu kala saari karin oo ay ku leeyihiin sharciga hortiisa xuquuq siman muwaadiniinta reer Soomaaliland qodobka 9aad dastuurka qodobka 9aad ee xeerka intaan soo taago wuxuu si toos ah uga hadlayaa gabadha Soomaaliland-ka ee guursatan in aan Soomaaliland ahayn inay luminayso jinsiyadeeda iyadoo oo ku luminaysa in uu qofku Soomaaliland-ka aan guursatay qof aan Soomaaliland ahayn ay ka luminayso ama ka xayuubinayso sharafteedii ay ku lahayd jinsiyadda Soomaaliland qodobkaas wuxuu baahan yahay wax ka bedel kaabis lagu sameeyo isagoo si toos ah uga hor imanaya qodobka 8aad ee dastuurka Soomaaliland iyadoo lagu kala saaray lab iyo dhidig gabadha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Soomaaliland-riska ah waxa jinsiyadeeda ku ay kartaa kaliya iyadoo ka tanaasusay jinsiyadeeda oo si toos ah u qaadato jinsiyad kale haddii laakiin ay jinsiyadeedii haysato kuma waay karto jinsiyad kale oo nin kale oo jinsiyad kale oo ay guursataa inaanu ka lumin jinsiyadeeda waayo waa xuquuq iyo xaq iyadu gaar u leedahay taasina waxaad moodaa in dastuurka xoog hor imanayo waxa yana meesha ku jirta in qodobka labaad ee ka sii hooseeya inuu ka hadlayo ninka labka ee guursada gabadhan Soomaaliland ahayn in sida ay ku helayso dhalashada isagoo sheegaya qofka ninka labka ay soo guursada gabadhan Soomaaliland ahayn inay si automatically u helayso marka uu soo guursado dhalashada hadii uu furana ay si haysan karto taa lafteedu waxay cadeynaysaa in xeerkii lagu kala saaray gender iyadoo gabadhii Soomaaliland riska ahaydna ay lumisay dhalashadeedii ninkii Soomaaliland riska ahana uu jinsiyadiisa gabadhii uu soo qaadatay oo uu helay oo gabadha uu soo guursanay ay ku helayso jinsiyadda by marriage-ka uu sameeyay ninka Soomaaliland riska marka qodobkaas wuxuu si toos u diidan yahay ama si toos uga hor imanaya ama si toos u duraya xuquuqda ay ku leedahay sharciga hortiisa gabadha Soomaaliland riska ee uu siiyay dastuurku xaq siman ee looga sameeyay oo la siman tahay muwaadiniinta Soomaaliland waxaana ay gabadha Soomaaliland riska ay waay kartaa jinsiyadeeda hadii iyadu iskeed uga tanaasusho ama ay keento asbaabo kale oo ay ku waay karto xeerka jinsiyadda Soomaaliland riska xeerkani applicable ma ku yahay waqti xaadirkan in lagu soo dhaqmo Soomaaliland waxaan qabaa xeerkan inuu u baahan yahay wax ka bedel iyo kaabis fara badan in lagu sameeyo oo la sugo muwaadiniinta Soomaaliland loona sugo xuquuqda asaasiga ay ku leeyihiin sharciga hortiisa ee qof kastaba waayo waxay u taabanaysaa xuquuqdani si individual ay qofka u taabanaysaa xuquuqdiisa shakhsiga u leeyahay xeerkani waxa ma saameynaya carruurta xeerkani markaan eego dhanka kale wuxuu ku leeyahay saameyn carruurta waa xeerka jinsiyadda Soomaaliland qofku wuxuu ka leeyahay jinsiyadda qofka la garanayo aabihii iyo hooyadii iyo qof kale waa single parent loo yaqaan ama hooyada khali ah waxa jiray ilmo saddexaad oo ah ilmaha qaranku korsada ama adoptionka loo yaqaan ee aan hooyadii iyo aabihii la qaadanayn kaas oo raaciyay bayna naturalizationka qaabka lagu helayo codsashada ilmahaas oo u dhashay Soomaaliland riska isagana waxa in si fiican loo sugo xuquuqdiisa uu ku leeyahay oo ilmaha Soomaaliland rika ee one single parent ee hooyadii Soomaaliland rika tahay waa inuu helaa jinsiyadda Soomaaliland waayo wuxuu uu ka helayaa jinsiyadda hooyadii uu xaq u leeyahay taasina waxa ay sheegaysaa in waxa yana meesha aan ka madhayno ku jirta ilmaha aan labadiisa waalid la garanaynin ee la korsada ee qaranku korsada inuu isna helo jinsiyadiisa Soomaaliland oo uu ka helayo jinsiyadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ama taasaan qabaa in dastuurka in xeerkan lagu sameeyo wax ka bedel iyo kaabis lana waafajiyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla qodobkiisa 8aad Cabdixakiin Aadan Cabdi Cille waxaad ka mid tahay dadka taageersan in xeerku sidan ku sii shaqeeyo waxaad sheegtaa waxaad ku dooratay inuu xeerku sidan ku sii shaqeeyo doodaad ka qabto su'aasha uu weydiiyay maxaa ku taageersan tahay xeerka horta xeerka waa la isku wada waafaqsan yahay
hal dhinac uma iska waafaqsanayn oo ah hal qodob halka qodob wuxuu ka sheekeeyay marka waa gabadha guursata ajnabi gabadha guursata ajnabi ma waayeysaa mise waa helaysaa ayuu ka hadlaa hadaba halka haddaan dul istaagno gabadha guursata ajnabi marka lagu leeyahay qodobkaas hadaba afar buu ka hadlaa afartaas waxa weeye ka koowaad oo ah nin Somaliland ayaa guursaday gabadh aan Somaliland ahayn maxaa laga yeelay jinsiyadii waxa laga yeelayaa baa la yiri gabadha uu soo guursaday way helaysaa sababtoo ah ilmahoogu wuxuu ku abtirsanayaa ninka guursaday deeto caruurteeda iyo iyaduba waxay isla noqonayaan Somaliland isla noqonayaan halka sirta ku duugan waxa weeye odayaasha dejiilaha ka abaal mariya ay ugu tala galeen waxa weeye in Somaliland intu bataan miyaa la jecel yahay mise inay yaraadaan waxa la jecel yahay inay bataan badeedii maxay ku imanaysaa ninku cidii uu soo guursado ma in xeradii lagu soo daro mise in xeradii laga saaro waa in xeradii lagu soo daro deeto gabadha uu ninkaas soo guursaday dhalashadii waa la siinayaa sabab ma loo siinay ilmaheedii ayaa Somaliland odaygeedii waa Somaliland iyadu way qaadanaysaa xabada halka laga keenay ma garanaysaa waxa laga keenay ninba gabadh ka soo guursaday dad kala ah deeto inantii uu soo guursaday caruurteedii waxay noqonayaan reerka ninka guursaday bay noqonayaan deeto sidaas si lamida inankii Somaliland wuxuu doonaa soo guursaday waxa uu doonay uu soo guursaday Somaliland bay isla noqonayaan waa taas mid kamida ku wala diidan yahay taasna aqliyan diiniyan urfiyan sharciyan wax alla wax ku qaldan ma jirto waa mid waa sax hadaba gabadhii baa la yimiday gabadha fiiskii ninkan ka istaagno isna ka istaag gabadhii waxay guursatay baa lagu yiri nin ajnabi ah waxaan u soo daadagna halka sheekadu ka qurxan tahay ninka ajnabiga reer Puntland buu noqday reer Xamar buu noqday reer Baydhabo buu noqday Soomaaliya buu isla noqday dadka soo qaad deeto Soomaaliyada haday inantaasi guursato inankiina uu Soomaaliya yahay iyaduna ay Soomaaliyada ay guursato waxa dhacaya gabadhu haday guursato ninka reer Soomaaliyada ilmaheedii iyo iyaduba yaa ku abtirsanayaan waxay ku abtirsanayaan ninka reer Soomaaliyada ku abtirsanayaan deeto gabadhu xeradii ayay dadkii ka saaraysaa yasabay uga saaraysaa iyadii la rabay inay dadka wax ku soo kordhiso ayaa iyadii dadka wax ka sii saaranaysaa sababay uga sii saaranaysaa gabadhu iyada Somaliland ahayd haday guursatay nin reer Puntland ah dhalashadii way waayaysaa leeyay maaha in diintii way waayaysaa leeyay wax weyn dadku inay ka soo qaadaan maaha nationality-gi Somaliland la yiraahdo un bay weeyday imika damba dadka haystaa wax xasaasoo lagu siiyay ma jirto ee wax looga sasabalka uma arko micnaheedu waxa weeye wixii soo process u yeesho wuxuu wax lagu kala socdo u yeesho gabadhii reer Somaliland ahayd ee nin Soomaaliya guursatay dhalashadii way waayaysaa sababtoo ah ninkaaba ku abtirsanaysaa inankeedu ku abtirsanayaa iyadu ku abtirsanaysaa macal qabiilka uu ninkaas ka dhashay bay ka abtirsanaysaa urfiyan in waa litaarufudi ba iimaan Soomaaliya litaarufudi ba khalkhalasa macal hadii dhinacna siiyo si hadaba litaarufudi uu u shaqeyso oo kitaabka Quraanka u shaqeeyo gabadhu waa in dhinac loogu soo hagaaga dhinacaasina waa dhinaca ninka ay guursatay qodobka saddexaad hadaba uu ka hadlaan waxa weeyi ninka ay guursatay isla iyada un weeyi hadii uu Somaliland ahaa deeto dhalashadii lumiyo maxaa laga yeelayaa waxa laga yeelayaa ninkaas haduu laajin noqon waayo oo ah qaxootiga loo aqoonsado haduu laajin noqon waayo waxay isla noqonayaan reer Soomaaliyeed isla noqonayaan deeto isku soo wada duubo sheekadan la diiday waxa weeyi gabadhii ma waayaysaa mise ma waayayso gabadhii way waayaysaa in diin baad weeyday lama lahayn wixii ba processka la habeynaya Soomaha si diintii loo sugo oo curfigii iyo dhaqankii iyo qabiilkii dadku ku wada dhasheen la isku garanayay loo sugo oo loo sugo tii diinta ay tiri la taarufudi oo loo sugo in qarankii uu sii balaadho oo loo sugo in processka lagu kala socdaa uu jiro oo loo sugo in dadku bataan darteed ba looga dhigay inay gabadhu ay ninka ay guursatay ku abtirsato in iyada jeclaatay marka hore Cabdi Casiis waxa sheegtay inuu xeerkan meelo badan oo dastuurka Somaliland ka khilaafsan yahay bal meelahaasi noo sheeg dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland
anigoo sheegaya meelaha uu ka khilaafsan yahay isla xeerkan xeer number 22 xeerkani qodobkiisa 9aad waxaan waafaqsanayn isla qodobka dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 8aad kaasoo muwaadiniinta simaya kuna kala saareen qabiilka dhalashada lab iyo dhadig isla xeerka jinsiyadda xeerka isteedada qodobka sidaad Soomaaliland wuxuu oranayaa isagoo hadlaya kala muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo loo kala saari karin qabiilka dhalashada lab iyo dhadig iyo afkaarta iyo wixii la midaba waxay sharciga hortiisa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad isku mid ah halka uu khilaafsan yahay isla xeerkan qodobkiisa 9aad ah in gabadhuna nin guursato ajaanib ah ay luminayso jinsiyadeedii gabadha ajaanibka guursanin muwaadiniinta helaysa muwaadinimadeedii halkaana uu ku duray xuquuqdii muwaadinimada ee hablaha reer Soomaaliland Cabdixakiin Cabdicasiis waxa uu sheegay in qodobo ka mid ah dastuurka uu xeerkan jinsiyaddu uu khilaafsan yahay doodiisaasi maxaad ku difaacaysaa dooda walaalka Cabdicasiis ee ah inuu soo xigtay qodobka 8aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkaas runtii wuxuu sheegayaa in muwaadiniintu ay u siman yihiin sharciga amba xuquuqaadka iyo waajibaadka iyo wax kasta wadanka ay u siman yihiin sax hadaba waxa isweydiin leh dastuurku sidoo wuxuu sheegaa dastuurku wuxuu wax u sheegaa si general ah xeerarka hoosana way sii macneeyaan ama ay way sii sharaxaan hadaba dastuurku waa generalnimadiisaas wuxuu ku sheegay in dadku u siman yihiin xuquuqaadka iyo waajibaadka ka dhalanaya wax kasta oo u dhaxeeya wadanka waa sax taasi hay hada ana waxa ku difaacayaa oo ku leeyahay gabadhii xuquuqdeedii muu ridin oo wali hadda xuquuqdeedii way haysataa oo saadarteed muu jabin qodobka 8 madaxweynaha awoodiisa oo ah qodobada u dambeeya ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay sheegayaan awoodda madaxweynaha waxa kamid ah hadaba in iyo waajibaadka madaxweynaha iyo marka uu dastuurku ka hadlayo waxa uu sheegaa madaxweynuhu wuxuu ilaalinayaa sumcadda iyo sharafta qaranka maxaa hoos imanaya iyo ilaalintii wadanka waxa hoos imanaysa in ay dad Ethiopian ah ama dad Sulu ah haday gabadhii soo guursato guriga ku keento oo adna ogolaatid Soomaalilandariintii Afrika oo dhan ba qaybsanaysa markaa si Aasiya oo dhan ba qaybsanaysa sida darteed qodobka ah awoodii madaxweynaha oo sheegay ilaalinta qaranka ayaa ka sii weyn amba u dhiganta qodobka 8aad ee ah dadka xasinaadaan mid weeji ta kale ah iyadna xabad kale waxa jirta ah in dastuurku si common wax u sheego xeerarka hoose wadankuna ay wax si tafaasiilayaan xeerarkii hoose ayaana u ogolaaday in ninkii uu soo guursan karo gabadhiina aan guursan karin ka baxay Cabdilaahi adigu ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeynaysaa dooda xeerkaagan bismillaahir rahmaanir rahiim gabagabadii waxaan ku soo gabagabeynaa doodayda sharci xeerkan ka hadlaya xeerka jinsiyadda Soomaaliland qodobkiisa 12aad waxa uu si toos ah uga hadlayaa qodob kasta oo la ka mid ah xeerkan oo aan la socon karin xeerkan in la tirtirayo marka qodobka xeerkan wuxuu u baahan yahay in wax ka bedel iyo kaabis dhab lagu sameeyo oo la waafajiyo xeerka jinsiyadda Soomaaliland qodobkiisa 4aad iyo qodobkiisa 8aad oo ah muwaadiniinta siinaya xuquuq siman inay ku leeyihiin sharciga hortiisa marka waxaan ku talin lahaa ama soo jeedin lahaa gabagabadii in xeerkan uu baahan yahay wax ka bedel iyo kaabis in lagu sameeyo xeerkan sidaan hore soo sheegayba haweenka qora ma saameynaya caruurtan barbu ka saameynaya marka in lagu habeeyo baybaadka iyo binaturalizationka uu ku bixinayo jinsiyadda in caruurta iyagana arrinkooda si fiican oo tafadilan xeerka looga hadlo oo qaybtiisa oo caruurta ku dhalanaysa single parentiga iyo caruurta without parentiga ee la soo korshada qaranka soo abdashanka loo yaqaan in ayagana xeerku si toos ah looga hadlo xeerkan ugu dambeyntii waxa uu baahan yahay in wax kaabis iyo wax ka bedel lagu sameeyo lana waafajiyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 8aad si loogu sinaado muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu yeeshaan sinaan sharciga hortiisa والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سكري أدوك قدامين محد ضد هذا كسر قبينيسا. بسم الله الرحمن الرحيم. حير توت سنتو سي والله سو شيئين. حير ورطة وباهن حير ماها مالين كلية ميل لقى هالذكرة. أما مركان لين هاي مالين كلية ميل لقى هالذكرة ما هو حير بشو طبعا يسمى. وحير حساسية.
eeg haynu qodob horta dastuurku amba xeerkan la yiraahdo xeer 2002 marka laga tago qodobka afraad dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa loo qaabeeyaa saddex qaab baa loo qaabeeyaa waxa la yiraahdo saddex qaab ee qofka muwaadinka ama qofka doonaya nationality uu ku helo wata koobaad waa by birth waa dhalasho by birth dabay noqonaya waa first citizen-ka Jamhuuriyadda Soomaaliland amba muwaadin koowaad dhalada by birth oo ninka hooyadii aabihii ay ka soo jeedaan 26 June dadkii ku noolaa 26 June 1960 dadkii ku noolaa Jamhuuriyadda Soomaaliland and by nationalism amba aqoonsi waa muwaadinkii soo bixiyay foomkii ku xisnaa qodobka shanaad ee xeerkan xeer 2002 ee xeerka jinsiyadda Soomaaliland waa qodobka saddexaad ee waxa la yiraahdo waa by marriage buu ku helaa waxa weeyaan waa qof aabihii oo ahaa muwaadin Jamhuuriyadda Soomaaliland khaasoo dabadeed gabadhii ajnabiga u soo guursaday ay isaga la ajligii ay ku helayso aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyn anigoo doonaya inaan ku soo dhawaado xeerkani wuxuu mudnaanta koowaad siinayaa dadka ka isran Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku siinayaa dadka ka isran Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo sir ahaan dhowraya dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu yahay xeer ilaalinaya jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ilaalinaya muwaadiniinta iyo karaamadooda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leeyihiin qadiyadooda amba diintooda amba dhaqankooda amba isirkooda isagoo ilaalinaya waa qodobka labaad waa isagoo sibir saaraya inuu yahay dabar taranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama hooyadu tahay warshada soo saarta bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ama u tahay ukunta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama oo iyadii fogaatay oo ay tagtay dal kale oo ajnabi ah soo sheegay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa tahay daawadayaal intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa doodii koobneed ee qaybo ka mid ah ardayda kuuliyadda sharciga iyo qaanuunka ee jaamacadda Hargeysa ay ku lafagurayeen xeerka jinsiyadda Soomaaliland aad ayaad mahadsantii doodaasi waxa aad kala socon doontaan baraha bulshada ee aanu idinku darnay lifaaqa hordhaca ah ee dooda